يعني waxaa ka xumaada waxay tahay shaqada fasax ka qaatay jaamacadii aan ka baaqday waxaa wax ku diyaarsan yahay oo isdhahayo yaa 9 saac balanta ee tahay 8 saac bax waxaa way ku dibeysan yahay lacag la soo hor istaagteen yani warqadaada anaga isticmaalay muhiimad lacag ma aha buu waqtiga ay go'aansan yani maanta hada shaqada liga soo buriyay maxaa sheeganaa mid aan ku sheego weyn ayaan moogtahay ani maalinta warqadaas waxa uu sameeyay ninkan walaalkan dartiisa uu sameeyay asa arin xaaladda ku xumeed. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا ومحمد عبد المجيد دمان maanta kanaalka idin kala hadlayo waa kanaalka Osman J. hadda waxaan ka soo baxnay salaadii jimcaha maanta ay tahay maalin jimca ah. ninkan waa iska taqaanaan Osman J ninka kanaalka madaxdiisa. inagoo salaadii jimcaha ka soo baxnay waxay nagu soo dhacday fikradda qofka la yiraahdo Cabdiraxmaan Cabdi Majid Dimaan inaan ku sameeyno prank aad u qosol badan. dhammaan waxaan jecelnahay inaad ka wada heli doontaan برانك يحيس بدن عبد الرحمن سي جي برانك كمان تصعد على محاك هذا عبد الرحمن برانك لواضع وصوص سعودي وحاش خيسة على هذا سكي لا لجان يي سكي لا يي والله جبي برانك او كلوه سو ما كتير حتى برانك اللي اسكو سمينه هذا شيء ده كسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مر لواد يعني يو سي جي عثمان جي maanta asxaabay haddaan salaada ka imaanay maanta waa maalin jimco ah ee bishuna tahay 20 February 2020 markaa masaajidka ka soo baxnay sidaan idin sheegnay inaan idin soo wadno prank aad iyo aad u qurux badan kala kacsan. waxaan rabnaa maanta asxaabta ku xiran kanaalka inay fadhiga ka kacaan qosol darteeda. kolay qofka aan ku wadnana waa Cabdiraxmaan sidaa idin sheegnay. hadda asiga la hadlayaa mise sidaa maqasheenba dhiidka maqlaysiin asiga ka imaaday waxyaabo badan aan qoray message badan waxaan dhahay niyo haye shaashada soo saarayna message-yada kulay waa akhrisan doontaan yaan hadal idin kugu dheereen saacada kadib inuu imaado rajaynayna laakiin kaamirada waa joojinaynaa si aan markuu isaga imaado aan u dhameystirno qorshahana wuxuu u dhici doona waa sidan hadda si Cismaan idin sharxayo. soo akhrisateen message-yada Cabdiraxmaan jaamacadda jooga aad uu naxsan yahay inuu soo socdo wax yaraha ka dhiman wax yar marka Cabdiraxmaan uu naxsan yahay jaamacadda jooga qorshahana sida tan ay u dhici doontaa. Cabdiraxmaan markuu imaado waa wacayna halkaana soo fadhiisinayna meeshan uu fadhiyo kaameradana maazahayo aniga banaankan ku maqanaya xilligaas ninaan ogeyn aan waxba la soconaan iska dhigaya. Cabdiraxmaan markuu qolka galo dharkiis ka saaro dharkiis ka bedelo Cismaan uu tagayo oo soo wadaayo wuxuu leeyahay barnaamijkiyaan wadaa bal kaaleniyo aan ka wada hadalno. aniga marka saloonkan hadda fadhinaa jikada ku dhagan aniga mudbaqaan sii tagaya meeshaas qof howl ka hayaan iska dhigaya kadib si uusan asiga u fahmin markuu Cabdiraxmaan inta soo fadhiisiyo ay wada hadlaan markay dooda furmato ninkan Cismaan wuxuu leeyahay aniga Maxamedna arintan waan ka wada hadalnay niyo aan wacno isagaan arintan u bandhigayna dooda fikradda ka qabo dooda maxay tahay marka dooda waxa waaye lacag hor mar hore la soo diray wadanka markaa ku cusbahay yani ma fahansaneen lacagaasi lacagtana Cabdiraxmaan lagu soo diray xawaalada Tawakkal Express lagu soo diray xawaalada Tawakkal Express maadaama aysan joogin magaaladan anaga hadda aan ku leenahay wuxuu sameeyay Cabdiraxmaan account isaga uu leeyahay dalka Turkiga laga isticmaalo Kuwait la yiraahdo ugu soo direen kadib waxay ku ballameen asiga Cismaan inuu Cabdiraxmaan baxo uu lacagtaas u soo saaro uu keeno. Cismaanna marka wuxuu leeyahay niyo lacagtii maalintii la ii soo diray aniga sarifkiisa waa fiiriyay lacagtii ay keentay lacagaha ka dhiman oo naaqus weeyaan. Kuwait ay waxay goostaan Kuwait ay lacag ma goostaan maya lacag ma goostaan ay markii Kuwait lagu soo diray marka adiga ninkan madaxan ka galayna ma fahmino asiga waxa leeyahay bal lacagta service-ka maqan adiga ba qaadatay aan leeyahay markuu xoogaa yar stress ku furmana leeyahay bro isdaji ايش لا برانك هذا وليش كنت صدقينا يا باشا يا asxaabta Cabdiraxmaan wuu imaaday jaamacadda uu ka imaaday muddo kadib marka Maxamed ay la socodsiinaya markaan
aan karnaa iska dhigaa mafahmino intee waxaan leeyahay niyo kaale maxamed niyo jikadu sayidka kaale waxaan leenahay saloonka intuu faarku yahay dheh mafahantaa isku soo madaxa ka hadlay ninkii uu yimaaday istiyaariya wuu soo socdaa yuuna maqlay hadda marka hadda waa baxaynaa tarmaana soo wadaynaa anigaa soo wadaya halkaana soo fadhiisinaa maasa hadduu kaamirada noo haayo maasa xaggaasuu fadhiyaa malaga dareemaa marka dhaguu wataa marka nala socda maamahan yani stresska ku badana aan dareemo mafahmino adina yani dadka hadal markii oo ka hadlo yani oo kuweydina yani maxaa ku dhacay stress habeenkii markaa wax ka shaqeynaysay homework iyo waxaa dhihi yani stress ay ahaayo iyo wax murugii badana sheegataa yani arrinna waa jirtaa inaan kugu sii daraan ka baqo yani mafahmino adina qofka waxaa la rabaa markuu stress hayo inuu ka hadlo oo hadduu sheegto yani asxaabtiisa ama walaalihiisa waxyarkoo culays buu ku dagaa mogtahay anina hadda waxaa yani problem dhanka ka imaaday aa jiro inaan kugu sii daraa diido mafahmino maya yani haddii oo adiga xamili karti yani haddii kalena yani markana ka dhigi karnaa ka hadli karnaa maya dhib male waa isaga alaab waa lasoo wada mo stresska dhib male waa lagu daraaba dhib male waa la xalinaa muhiimada la xalinaa waxaa yani dhibaatay ku geysaneen mo yani qof dhib malaa waa isku cambuus maamo maya dhib male amar igashaa iyo fiican naftirka saasa iyo fiican amar igashaa iyo fiican yani ani waxaan aaga isku khafiifiyaa jeclahay lisku dadari lahaa yani ما اسكت ترى دب ملا سو داب حيز خيرنا مدوا نحن يعني واحد الحالي كذا واحد يعني حال ملوانا يمتمنا محاور مركب أنا أنت محاور يعني أنت أماني يعني كل اللي تقول سوداء ما شاء الله سوداء شيء كلي هذه سيف أنا إيش ولا بيسين يعني أنا بكره شنو أرنتان كل إيمان ويوم وحاجة ما حاجة ما يعني كفتنا معها يعني لعجة حتى حواي لعجتي درات دول سو دراي لعج أو إذن كي يعني أنتي إتهاد ولا حدا معها ما إيه مخندها لعجتي درات دول سو دراي oo adiga account-kaaga kusoo dhaceysay meeqay ahayd boqol walaalkayga waxaan u diray ani $150 fahmino xawaaladan yani tawakkal meeqay jarane lacagta ii soo diray maya waa hayaa ani waa kanahay resiidka ani ma kusoo diray ha resiidka waa kanahay waxaa ku qoran inuu inay yani wax ay goosteen $4 $150 lisoo diray ya marka aniga markii dib uu raacay arrintan ina adiga tanna makaa filinayn mogtahay adiga qof oo deganaa tahay oo salaadiisa dukanaayo digrigiisa afka ku haayo ya yani see wax u jiraan yani adiga problem maa ku haysto oo yani dhan lacag maa jirto aniga waxaa ka damqanaya waxaa waaye yani lacagta iga maqan ma ka damqanayo meeqaan kuusoo diraa wallaahi adi waxaa isoo dirtay boqolaal teela isoo dirtay maba fiirin ha yani lacagta isoo dirtay saa u socotay ani maba xisaaban xataa yani kalsoonida kugu qabo walidka lee geliyay waxay ahayd 200 iyo wax la jiro 90 iyo wax la jiro ها يعني 146 حدا أو ما أنفعش مرك ما فاهمينه لعك بدنا كم خمسة كون إيه واحد يجرو على قريبنا وصرف ما هو لعك تقولي كنا محمد أكله لي وحمد يعني سام إسكوجين يعني عبد الرحمن يعني أنت أنا لعك إن لقى خاضع أو جاي قفل بقولي شيء يعني وحيسي
ijaarkii cuntada wax walba waa la qaybsano waa ogahay yaa yani intaan ma isku ogeyn u dhahay yani xamarey intaan ma isku ogeyn u dhahay mafahmino daawidaan sheekaysanay marka iqaamada xareynayna marka maalmahan oo dhan asi ma isla hadlayna yani waqti markaasaa fursad isku helno marka see wax u jiraan yani dhan lacag problemka ku haysto dhanka lacag ma problemka haysto yani waa las caawin anaga waa isla joognaa moogtahay hadda anaga is caawinayn walaala aan nahay qof ku caawinaya ma jirto maaho horta isma horta ilaa meeqa bilood ilaa meeqa bilood joogta horta ani hadda inta kula joogo bil ma dhama maaho meeqa bilood lacag dhigtay hal bille lacag bishi dhagowaad lacag dhiibi lacagteeda lacag ka dhimana dareemo maaho lacagtii masi markaas sarifka intuu maraayay iyo waqtigii lacagta ay gacanta ii saartay mees laha maaho hadda adiga yani akhrisat yani aan dhibkayga waxaa waa adiga wax problemka akhrisanoosi laaba hadda aniga aan ku caawi karo yaa inaan ku caawiya jeclahay yani adiga yani wax aan lii soo diray lacagtii lacag ka baxays ma fiicna moogtahay horta an horta stress gooniya sameena stressiga maho hadana kan hadda maanta caawa waxa ii soo sugtay cabdiraxmaan saan maxamed ala hadlay asaa ii faahfaahiyay moogtahay maxamed حارس محمد أصوات محمد هاوي كهليني حمد وطننا إيشا أنا بتي إسماء نقول بوحكة رئيس السلوسي أنا عثمان عاوي إما وحكة رئيس السلوسي أنا قولي وأسجلنا ما نقول بوحة إسكاليا وحة لماتين ولا نحن أنا ولجيت كي وحة وخفر بماتين وفرح سنة عثمان ما تحب إيسو سلو يعني عثمان العيا مكان كو هذا واحد يسوي قرية قفل بوحو قابس وحو بحيوة وقاهي مفاهمت مركا وحولي يعني واحد زايد عليك هذا وركيس ساين في الدلامة أنا محمد الدواش كان سنة بقول أفرتني $1 على صدري يعني بقول كنت أنا ولكن ودري توكل $4 يكوسر نسا لعكت يمكن صدري ما يعني سي وشيء بقول $1 iyo boqol iyo afartan waxay kun ka badan ay ku maanaysaa ma lacag teele marka laga dhigay lacag turkiga ninkan maalmahan yani asar umurgo hadda yani waa xanaagsanaa marka wada lacag ay maqan tahay lacagteeda la sii maaha waxaan dhahay waa ninkan maalmahan umurga ka muuqdo stress badan oo kugu furnaan dhahay anina ku sii darmaro yani dhan lacag stress dhan lacagteeda ka haaso yani waa is caawinayna yani bedelka adi amaanada lagu soo dir waxaad ka baxsan lahayd ceeb waa ma $4 مياه وكان مقام أنا دويسا. ساس ما يا أخي. ما $4 لا. $4 أني بروبلم كذا كهدلو يعني. هي هرت. وجيدا كويسة كهدلو. هرت لعقتها. ولا لا يعني $4 مكان كل إيمانه عيب وحس. خير عثمان. لعقتها في هنا تسكر لعقتها. وهكذا رسيت. أنا اسمه كوسدران مايا. أنا هذا اسمه كوسدران. وهكذا توكل إكسبرس لعقتي صدرتي. بقول $50 ولكن يقول دري عبد الرحمن عبد المجيد إيمان حقصو قارتي بقول أفرتني $1 حقصو قارتي. الحمد لله. بقول أفرتني حالي يصدرني. ها أنا بقول أفرتني لحظة السنة هاي أنت لعقت أو كسرفي بنجي أو كسر أو كسر بيجي أو كوكير يعني تنكهد له تاسمع $4 مخمة. لعقت تاس تيلي مركالة كده كومانان تيلي كوماني مهم. ما لو بقول الجبل يكون معكم أنا ترى شيء اسمه اسماء أنا ما حقنا يعني جيني ما أقول على والله ما لعقت أنت لا أنا ما فهمت زين أنا ما كان ما بسكوت $1 كم يقوى بقول أفتح $1 بقول في ما يقوى سنة بقول حتى فين ما يقوى ما يستجع الحرف واو سنة بقول لحد زد تلا ما كون كنت إذا تبقى شو اسمه فاهمه يبقى اسمه أنا بعد تعوي ما أنا أنا مين دقيقة كرتين. أوكي. ماشي. ورتاني. وكدار زمان درتان يورل. كشكار دشون والله راك. مفهمت. يعني ما أنت والله بداية عشان مركو وارنتاني اللي ماضي هذا وأنا يعني. يعني أنا بوسكي أنا هدي أهان لها ماركتين. يعني قفك واحد لقى شيء جنا الماركت. أنا هدي أهان لها. يعني waxaan dhihi lahaa yani in shaqadiisa badan tahay maxaa lahaa waa laga yaabaa inay meel ka raacday
waa isdhihi karay asigana si waa ku xallin karay fahmaysaa aniga daatii markaan kula soo hadlay aan ku dhahay niyo cusmaan aan ku raadinooyo waxay dhacday niyo muruga anaa bateeda iyo haysato madaxa ay xanuunooyo wax akhrisaa jaamacadda u imaaday waxayga ka akhristo anigana marka waxaa isdhahay niyo saab maalmahan murugta ku furan tahay ya murugta ha kusii furin oo wax kale ha usii sheeganin aa isdhahay asi markuu imaado labadooda is arkaan ayagaani marag ayagaa wada sheekaystaan cismaan wuxuu kaloo ii sheegay yani keliya inaysan lacagtaan ahayn lacag kaloo hore xitaa inuu bishii hore miyaa maaqan uu ku dhiibay oo iyadana naaqus ku jirtay oo 100 TL miyaa wax saas camal ka maqnaa waxaan dhahay niyow ana horta in laysla xisaabtamo way fiican tahay nimanka ragga xitaa walaalka hadduu yahay xisaaba idinkala geynayso oo waxaa hore loo dhahay yani qofaa la xisaabtamaysa sida cadowgaaga oo la xisaabtan qofaa u naxariisanaysidna sida walaalkaaga oo kale ugu naxariiso mo ninkan yani halahaas wuxuu ii sheegay waxaan dhahay niyow cabdiraxmaan shaashi ninkaas in halahaas wax yani maanta dhahayo uu sameynaa ma ahan bini aadanna waaye way ka dhici kartaa waa laga yaabaa inuu yani oo si qaldama xisaabiye dollarkana yani mar walba mid ciyaarta waa yani mid mar kor waa mar hoos waaye waxaa laga yaabaa adiga intaa maalintii xisaabatay dollarka inuu kasoo degay isaga intaas yani waxa laakiin aniga ma aqaan yani si kale waxa jiraan adiga fikraysid ma aqaan idinkii idin dhex taala ما والله waxaan ka xumaan mataqaana caafimaadka ay kooda aan laakiin in bala dad walaalaha xumaan iyo waxaas ma kala aqaan ma barabo waxaad fahamtay adalka dhaaday in caadi ah adalka soo dhigi kartaa guriga waa soo degan yahay bin aadam tahay dhankii inuu wuxuu arintaas ay kaaga dhacdo waa laga yaabaa oo ana qalad ay fahamtay laakiin ani guriga waa wada joognaa dhamaantiin la qof oo wada joognaa dhamaanteen dad walaalaha wada nahay qof maanta dhamaantiin waa i wada sameeyeen xamare boos uu taagan yahay waa i taagan tahay maas uu taagan yahay meerku uu taagan yahay maanta been ku sheegay ani guriga waa la wada joogaa waxa waaye marka qaar waxa iska dhacdo in waxa la isku darsado guriga ay ku filnaamaysa qofkii waxa iska xalinaayo fahamtay yani arayna waxa uu sameeyaa waxaas qof walba iska faraxsanaado guriga laga dareemay stresski aan la hayo way kaato stresski hayo waxa kamid ah guriga kamid ah oo kale waxa jiro waxyaabo qaar oo wali aan lacagtiisa la bixinaa jiro oo lacag waa iska gooday laakiin ani aan iska inaa xariisto tartiib aan ku xariyo idinkum idin sheego wallahi idinka qarinayaa bis waxaan leeyahay bis dadkan waa wuxuu way baxsadeen culays kala oo keen nin walba xaaladu ku sugaa maanta ana ma dareemi karaa waa dhawaanteen walaalayaal tiin ada hadii maanta dhoosid laba qod waa ugaarsan waxay dhahay lacag ay maqan lacagta ka maqan hadii ana u tuhmaysid oo leeda ada iga hayst ada arintan ugu sameeyay leeda ma aragtay diyaar aan lacagad waa haysta alxamdulillah inta taasheego warkayaan dheereen waa ku siinaa lacagta mid kale waxaan ugu haystaa guriga dhoosa waxyaabo saas jiro marka adigaadu waa fadhisaa ana duwalana daarabtid guriga lacag ka baxsan sadii baxsan isku mid loo yahay marar walaalkeena tahay guriga waa yani muhiimad in lacag baxso oo guriga joogtid ma muhiimad waa tilmaada ana ma tilmaada فانت مرنا مجعلنا إيجو فقات فانت أدي بيلكي أدي أعرفتي حتى أدي أسكت دي حتى أنا إيجو فقات وما أنا أحمس أنا بكايرين أنا بكاهرين أو حاكل أصلا كذا ولا كذا شناك إسكنات شناك وحوا بالآدم قعدوا فيها مرك إلهي شناك أنا يخص ما أنت تدور على ولا نحي قولي قال يوم البو احترام الوجوه ولا سكفر أحسنها مرك فرحدث إن الدنيا مرة أنا ما أدري لك أهلا معاص. أوكي لما يسكت. si khaldana ay fahanto marka hore ani ma ku dhihin yani adiga lacagaaga xadde ama lacagaaga maqan ay dhahdo $140 isoo diray xisaabtan kale ku imaada taas ani waxa ka murgaya waxay tahay adiga niman maamahan oo dhan muruga sheeganaysa waxna ma noo sheegaysi tan macni meeshay ka dhalatay lacagtii maqan maxaa yani ninkan problem lacag ma haysto hadda adaa afkaaga ku keentay waxaa dhahday guriga waxaa jiro bilal oo la bixinin qof walbana lacagtiisu bixiyo hadda midaha ka haysna hal point ka haystaa maamino waxaa dhahday lacagyada oo bilal taagan
idinkana lacagihiin waa la dhibixiseen yani waa niga xishoonaha inaa lacag kalina weydiiyo okay micno male taas waa ku hadli karnaa mafahmino wax isla qaybsan kara waa yani haddaa anaga yani qolalka a qaybsanoono cuntada a qaybsanoono isla cunteynono isla fadhiisanoono murugidada in a qaybsanaa muhiimsan idinkaa murugta diida anigna kaa taara aniga guriga mid kale khalada iga gashay hadda ugu aadaysay guriga khalad ma ka sheegan ani maya waxaa dhahday ani xamari baa wada hadalay arrintaas yani waxaa u fahmay lacagta waaye yani lacag halkaas problem la taagnay yani intaa sharxiisa hadda waxaa igu soo dhacday lacagta oo ciqaamada warqadii aan diyaarsaday hadda ka waran fiilaad qof sa ii lugeyso shaleeto ka waran ani lacagtada horta mid aan ku yeelo ismaan ani lacagtaas maalinta kaas warqadaas aad soo samaystay maalintii waxaan kaaga qaadanaa waxay ahayd waqti ma haysanin ninkan maas iqaamada way ka dhaceysay ase xitaa waa kan hadda wuu fadhiyaa meesha iqaamada way ka dhaceysay may maqluwaa ma ogaasi maas dhagaha waxa ugu jira ama hay ka soco aan dad waaweyn hadlooye fili waxaan ku dhahay ani maya wuxuu markii subaxdaas horta anaga waa degdegsaneen maalinta ka horeysay meesha arrintaan ugu cabdursaneed waqtina ma haysanin waxaan dhahay doo waqti ma haysano waqtiga adina viisada uu ka dhacay yaan lagu celinin cusmaankiisa aan qaadanaa dhahay lacagta markay ku imaado lacagtaas cusmaan siiyo waa ugu dardaarmi ani يعني وحلا يحن أساعد مكسين يا كذا مكسين كذا مكسين يا أنا عثمان أنا هذا horta qaladka weyn aan samaystay shaansha wuxuu ahaa aniga maalintii waxaan sameynaysa inaan karaab ku maqnaa ma maqnayd adiga maalintaas oo kuu sheegaan waxaan ku dhahay xamale aan ku dhahay cusmaan wixiisa waa kan ani waa lacag siinaa aan ku dhahay tamaam maalinta asiga wadaysay noteerka geenaysay ani ma joogay ani ninkaan noteer ma geenin maya warqadda maalintaa qaadanaysayna aan ku dhahay ninkaan noteerka inaa geysid waa ay dhahday anoo taleefonka kugula hadlayo nin waxa maray hadda waqti ma haysano ninkaana waqtigii ka lumin anagu waqtiga lumin waxaan waa soo sameynaynaa lacagta meesha hadhow markii lacagta usoo dhacdo bixinaayo ay dhahda mise beenaa sheegaa suuq marka inaa kuu sheegaa maya ku dhahay meesha lacagta ani dhegeysi waa dhamaysanaa ani marka waxaan ku dhahay niyow ninka cusmaane wixiisa shalaan rafaad ka soo marnay yani waqtigana wuu ku yaryahay yani meesha iska gii usoo sameey kadib yani hadhow sii jenikiisa iska haysto meesna waxay dhahday maya xamarey waqti ma haysto aniga waa yani degdega ku jiro waa geena markaa imaano lacagta ninkaas miiskaagaa la saarayaa si hadhow cusmaan wixiisa usoo samaysto saas ma ahayd ballanta fiiri ballantii ninkan uu lahaa waqtigii hore ma aqaan goorma ahayd 5 bisha ma ahayd ma aqaan usoo diyaarinayna warqadaha waxay dhahday maxamed aniga jaanis ma heli karo iga kansal waa kaa kansale warqadahaas rafaadkaa kasoo marnay waa ogey intaa subaxdii hore u kacnay aan baxnay soo dhammaynay imaanay haddana yacni iyadoo weyb dhacday bahay ninkii adiga idinka waa go-aansateen waa qaadateen wixii waa ku danaysateen ugu yaraan yani waxaa la rabay yani sidii aa uga danaysateen inaa yani markaa jaanis hesheen ugu soo dhawaa inaad baxdiin aa soo samaysiin waxaan aa noo keentiin shalay anagoo isdiyaarinay labisanay anigoo meel kale shaqo la iga sugaayo cusmaan oo maxaa la xisad uga haray dartiisa inuu waxaan soo dhamaysto subaxdii dhan bixin oo isdhahayay waxaa uu ku dhamaystiran yahay bacdi duhur leh bax meesha leh hore u tag isdhahayay aaba waxaa soo baxday ninkaana waxay dhahayo hay abti yani waraaqadii noteerka lacagtiisa waa kanaa sii jihadaha loo soo sameeyo 8 saac iyo 20 ayadoo la joogo anaga intee awoodnay inaan wax ka bilaabno runta la isku sheegaa fiicane maalintii cusmaan fiiri maalintii ninkan meesha geynaysay iyo maalintii shalay ahayd ya farqiga u dhaxaysana meesha ka muuqataa ha marka yani aniga xitaa inaa igu lugoysanaa u qaatay lugooyada la sheegaya dhan adi waa muuqtaa lugooyada la sheegaya dhan adi waa wallahi ninkan wixiisa mar hore usoo dhamey kartay saaki anaa dhib kugu kiciya haddii adi oo ani ahaada ani ninkan waqtigaas waaba ka wada hadalnay yani aniga sheekada ma bataagni hal mar aan ka dhex galo lambadiina walaalina madaxna iska geli marabo yani waxaa ka kullaada ku sheegaa ya waxaa ka kullaada waxaa waaye jaamacada dhigtaa subaxi
waa ogtahay adaa taas 3 saac galaa 7 saac kasoo baxa 7 saac saa usoo baxa computerkaasaa fadhiistaa shaqada saa ugal habeenkii 3 saac kasoo baxa ani waalidkayga lacag ma ka sugoy nin shaqaystaa ah lacagteedana yani aan isku bixiyaa magaalkayga ku maraa warqad aan diyaarsaday oo lacagtada soo baxay yani bilka hore aan diyaarsaday balanta waxaa u baajiye waxay ahayd aayadeeda la qalay waa ogeyd istanbul oo ku maqnaay istanbul oo ku maqnaay waa ogaa kaas waxaad ma ogaa mala yani ma ugu baaqanani yani waxaa ka xumaada waxay tahay shaqada fasax ka qaatay jaamacaddii aan ka baaqday waxaa waxay ku diyaarsan yahan oo isdhahayo yaa 9 saac balanta ee tahay 8 saac bax waxaaga way ku dhibaysan yihiin aa lacag igala soo hor istaagteen yani warqadaada anaga isticmaala muhiimad lacag ma aha buu waqtiga ay lumise ani yani maanta haddaa shaqada liga soo buriyay maxaa sheegana ani ani maalinta warqadaas waxaan u sameeyey ninkaan walaalkaaga dartiisaan u sameeyey yani asaa arrin xaalinta ku xumeen ninkaan caawiyaa isdhahay yani dhib male yani ninkii walaalkaaga arrinta loogu xaliye dhib ma lahan yani adima ifahmeysa adi lacagaa iga qaadata warqadaa iga qaadata ma kugu haysto ani waqtigaa iga lumisaa kugu haystaa adina murugiyadaadana yani adigana waxaa kaa xanaaqsanaya murugiyadaada adigu kuu kooban yahay haddaa ka hadli lahayd ka waran adi waxaan o dhan mar horaa la xalin karin mao cusmaan maanta sidaana sameeyey cusmaan tana hadda in laysku qayliyo waa laga fiican yahay goobtiin horta adiga hadda ani aadahashiineyna hadda waxaan o dhan khallaad oo soo gashay ma adi qof oo isku cambuursadaa naqatay adoo dhan culeysaa ku fuulo hadda kadib aniga diyaara kula ahay qalbi nadiif walaalkaaga ahay murugiyadaada ila qaybso waa kula joogaa yaa tan oo kale dambe ay u dhicin war ma gelin qadaya maanta dhan hadaaya waxaa la yaabana iyo waxaa igu daya waxay dhahday arinaas usmaan ku dhahay waxaa igu soo xarsatay ha waxay dhahday cabdiraxmaan waxaa ma soo dhageysta cusmaan haa dhahday kadib waxaan ku dhahay tamaam waxaa ii soo qortay arinaas uu kordhay wallahi been mu ku sheekanaa istaagay anoo markaas qorshaan lahaa qorsheyga wuxuu ahaa jaamacadda inaan wixii soo akhristo tartiib aan usoo akhristo oo markaas aa imaado markay dhahday arinaas uu kordhay dhahday wallahi isa masaajidkaa ku diray salaada kadib inaan guriga iska imaadaa rabay adaa markay dhahday dhib malaxmanaya haddana lasoo cusmaan muxuu rabaa anaa muxuu ubaa wax dhib maa jira anahay ma ooyo dhahay wallahi markaa meesha jaamacadda aado wax meesha librariga markaa aado wallahi markaa aan ku talagalay 3 saac oo kale inaan wax akhristo 1 saac dhib kusoo akhristay ciyo waa iska imaaday waxaan guriga fiiriyo maxaa jiro cusmaan muxuu sheeganayaa maanta dhibka jira maxaa soo fiiriyo intaas dhan waxaan diid waa bis waxaan ka hortoogaa wallahi waxaa mar walba bis in oo yani dhexdeena khalada isku fahanno qof kale oo xoogaa xumaan u qaado calooshiisa wax u geliyaan diid waa bis haddii niyadeeda oo shaki uu kaaga jiro ani dhib male wax walba uu eesid haddaa dhahday waqtiga ilumas waqtigaa waa kuu soo celinaa lacagtaas daarta waa kuu soo celinaa waqti sidee la soo celinaa stresska markaa kiinoyo abuura brank waay adama wareersada walahi يوتيوب لا فيرزوس مليح انا ورثتي وقتها ابو سعيد ما بلاد مايا ابو سيد عمر انا ورثتي ابو ما انا حقك ويدي انا ورثتي وقتها ابو سعيد ما بلاد هذا waxaan ka wadaa waana soo celinaa waxaan ka wadaa hadda maalinta waqti lagu miyaa marka adiga murugiyada iska dhaaf murug waxaan waxaan la yaabana cunuga oo maanta oo madaxiisa waas anaaysu dhageysano isla ila ataaba madax tareenka ataaba marka fiiri walaa wuxuu kan horta walaa wuxuu dhigay qorshahan waxaa ka dambeeyey walaalkaa ka dambeeyey asaa kugu sameeyey baraankiga ma fahmino ani wax lacag igama khamajirto ma fahmino
maalintaasna si fiican ay qancisa waxaas hadda xasuusatay asxaabay saa ula socotiin ninka cabdiraxmaan ahaa fiidiyoogiisa aan wadada kusoo bilownay qorshaan adigu iga yimaadeen maxaa cabdimajiid imaana instagramkaygana koley cj qaybta sare mohan/abdi1 qof walba waxaa idin sheegayaa inuu si follow gareeyo teeda labaad managerka shirkadda tala bixinta ee iman consulting waxaan kale oo idin sheegayaa ninkan walaalkayga weyn waaye mataankayga 7 daqiiqa noo dhexay si fiican noo fiiriyay isaga gar uu iga gar badan yahay bes yani uu loo maleynayo inuu iga weyn yahay sababtaan ugu sameynayna waxay tahay yani maalmahan dhan aan guriga wada joognaa runtii yani problemka inaga dhan wuuna wada haystaa yani isaga warwarkiisa anagana warwarkeena waaye waxaan jeclaysanay inaan isaga murugta si aan uga qoslin lahayn cawada aan uga farxin lahayn inkastoo yani isaga aan si fiican u aqaano waxaan si fudud uga dhammaanayn laakiin idinka waxaa idin leeyahay waxay tahay ninkan moraalkiisa inaad soo celisaan maxaa leedahay si jeen cabdiraxmaan ala soo hadlo mar labaad instagramkiisa meelaha na soo gelinaa Ama ugu kusoo dhisa motivation badan kusoo xariiqa